arooska yaa fadhiyo sadohday gabadha abtigeed isaan ayeeyadayo dhimatay alla maxaan sheekaydinayaa nacala abiinku. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabay halkan waxaan aad idinkula wadaagayaa sheeko aad u macaan. waxaan idinka sheekaynayaa berigii anigoo arooskayga aan shiiday. waan idin bilaabayaa waxa igu kalifayna arooskayga shiido iyo qaabkan u shiiday. waxaa dhacday anigoo wiil yar oo 18 jir baan guursaday. waxaa dhacday habeenkii kowda baa berigii hore aroosyada maanta ku yiri waa kala duwanaayeen baa dadkii waaba ka waayeen ba dadkii markay 12 hawshii gaadhay dabeedna ninkii askariga ahaa dadkii wuxuu ku warnay arooska ma rafacnaa heerka iska saxdeen markaas ay war hawsha noo sii wad waa ka gudbay kowdii habeenimo markay marisay baa ninkii ilan dadkan dad waxa ku og meel maaha baa ninkii marxiiska ahaa baan ku warnay arooska miskar facnaa sida xagaa arooska facnaa arooska ba hada ku laado shidmay gabadhi waxa ku tirnaa dhawaan taalay saytii akhas dama adu daash ma 15 jir daash ma 17 jir daash ma marka waxaan saad noqonaysaa hawshii markay halka marayso oo aan qeyn layla qaadwaleynayo oo dilayla dhigdhigayo baan ninkii milxiiska ku dibadda u baxaynayna keen waa kuwa ciyaalku aroosida shiidaan waxaan wataa shaar iyo surwaal cad ciyaalkii baan ku arooskaan shiidin buuhood marka waa meel ciid weyn waa buuhood meeshu roob arooska inaan shiidaan aniga ciyaalka marka ku heshiin khadka yeela kala waxba yeela kala kabacdi markii aan ku heshiinay ciyaalkii iyo anagu dhagaxaantan kuran waaniga dantaankii u weynaa anigu tuuray waa horta saddex tiriig bay ahaayeen oo tiriig baa baxayso tiriig tiban mid jibiyey foostadu ku dhacay tiriig intuu ku dhacay foostada ku soo dhacay gabadh cagta ka dhacay saali war aan soo qabanan qofkayna shiidaya ciyaalkii weeye ciyaalkuna way yaqaanaan qofka waxay arooska shiidaya ciyaalkii baa alla waa shaqaalay somay ahayn inaan aniguna dhinac carra ciyaalkuna dhinac carraan ciyaalkii markaan boodnay markii baan ay cagtay saareen waxay dhahaan waa kan ninkii arooska shiiday waana aniga iyagow arooska waxaa fadhiya sodohday iyo ayeeday oo dhimatay iyo gabadha abtigeed ceb bay iga dhici doonteen kabacdi meel waxaan ku dhacay way ciyaalkii baa cayrsaday waxaan ku dhacay meel biyo god ah oo dhagaxna ku dhex jiro waa fiibaxday waa kufa biyihii madaxaan la kala iyo dhooqadii ninkii shaarkii suwaalka caasitay ee arooska ahaa afar nin baa soo gaaray iyo ciyaalkii labada gacmood iyo labada lugood baa la qabtay waa la soo lalmiyay qoortii aan sida lahayd dhulka lalminayna shotmiyo dhin ciid baan ku qaaday anigoo aad mooday inaan qodii 7 habeen gaaray qodii 7 kabacdi arooskii markii la dhex keenay anigoo la lalminayo ummadii ilaahay way yaabtay waxa hooyaday oo halkan fadhiday iyo arooska fadhiday waxay tii alla baa wiilka maluuq baa loo galay waa la dilay maxaa sidan u galay waxa la ninkan waa ninkii arooska shiidayay dadkii arooska tunaa iyo ummadii ilaahay oo dhan wax yaaba gabadhiina waxay iska soo jartay arooskii degdeg baa loo rafay gabadhii waxay gurigay degdeg u gashay waxay tii alla baayna waa maxay kana soo daba kala alla inkaarani alla habaar baan qabanaa intaan socdaan dhifaq soo daba kala gudahan wada kala sagtay dhifaqow ibar warqatay ibar hadda fayoobahay inaad ragacday naayaha naasle wuxuu ogaan ma jirtee naagwaan daalnay na adiguna waadigii daalnaa ana waanigii daalay dadkana waxba meel kuma ogeeyni hawsha wala gabadhi baan xaqan iyo xaqan kaga dhirbaxo si dhinkan qabadsiiyay ceebtaas berigay ugu dhacday qaybta kale halkan kula xidhay way salaamay halkaas ku dhanta